حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاة. ارفعي الرأس شموخا وارسمي بسمة تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قاريga waa salaamay. magacayga waa Raxmaan, halka aad naga daawanaysaan waa Malaak Jana. waxaad daawanaysaan barnaamij banaad xawaa sida aad ka arkaysaan magaciisa waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno dumarka isla markaana aan ku marka qaadno haweenka aan isleenahay waxay saameyn ku leeyihiin bulshada. sidoo kale waxaan ku qabanaa tartamo haweenka kaar u ah oo aan ku bixinayno hadiyad qiimo ah. waxaan kaloo doodo ugu sameynaa haweenka barnaamijyo quseeya haweenka. maantana waxaa marti inoogu ah Victoressa Idil Maxamed Cabdiraxmaan oo iyadu soo saarta borodhagtiga ama qofka loo yaqaano cajaba. marka hore Idil isbar asxaabta. aada u mahadsan tahay walaashay ustaada Malaak raxma salaad. waa ku dhawahay janalkaaga run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay inaad qayb ka ahay barnaamijyada aad qabanaysid ee loogu faa'iideynayo gabdhaha Soomaaliyeed isla markaana lagu dhiirigeliyo. waa ku dhawahay barnaamijka waan salaamaya asxaabtaada qaaliga ah. magacayga sida taqaaniin waa Idil Maxamed Cabdiraxmaan kulliyadda caafimaadka ka baxay ee medicine-ka and surgery. haddana waxaan ahay gabdhaha ganacsatada Soomaaliyeed oo business ayaan ku shaqeeyaa. Idil waxaa inooga warbixisaa borodhagtiga aad soo saartid iyo qaabka u samaysid guud ahaan yani borodhagtigaaga warbixin ku diinaysid. run ahaantii horta inta aan kusoo guda jiray caafimaadka isbitaalada marka aan joogay waxyaabaha ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay ka cabanayaan waa cudurka gaaska ah, baabasiirka. waa cudurrada ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay la nool yihiin isla markaana ay qaar badan aysan ka warqabin. qoto dheer markaa research badan ku sameeyay waxaa ii soo baxday cudurradaas waxyaabaha ugu badan oo u keenaya bulshada inay tahay cunto xumida ka jirto. tusaale ahaan waxaa kasoo qaatay subaxii oo kale marka la quraacanayo. quraacda waa waxa aasaasiga u ah qofka bini'aadanka oo muhiimka u ah in uu mar walba ka taxadaro isla markaana uu si fiican uga fikiro. waxaa ka warqabtaa dhaqan ahaan bulshada Soomaaliyeed waxay ku quraacdaan canjeero burka cad laga sameeyay isla markaana waxaa lagu daraa habeenkii khamiir cajiin taasoo waqti qaadanaysa inay canjeerada sii khamiirto. subaxina canjeeradaas la isticmaalayo waa acidity oo yani acidkeeda yani aad ay u badan yahay. acidka cuntooyinka ay ku badan tahay qofka subaxi asoo gaajeysan marka uu ku bilaabana waxay qayb ka qaadanaysaa inuu qofkaaseeto cudurro badan uu kasii dhexlo. ay ugu muhiimsan tahay cudurka loo yaqaano gaaska. taas marka laga soo tago cuntooyinka badanaa bulshada Soomaaliyeed ay isticmaalaan waa cuntooyin carbohydrates ah oo badanaa qofka waxay saameyn ku yeelataa dheefshiidkiisa oo maalmo inuu si saxaroon ama saxariisii adkaato. taasina waxay keenaysaa qofka inuu ku dhaco baabasiir cudurka loo yaqaano. labadaas cudur faktaradaas ay keenayaan marka aan baaray waxyaabaha lagu xalin karo waxaan soo sameeyay burkan oo loogu talagalay dadka gaaska qabaan sidoo kalena dadka normalka ah qofkii caafimaadka qaban uu isticmaali karo ayadoo oo ka caawinayso qofka caafimaad ahaankiisa inuu kor u qaado dadka yani caloosha qofka inay u socodsiiso. waxaa taas sii dheer hooyooyinka ilmaha nuujinayaan oo kale caanaha naaska in ay u zaa'idiso ayada oo hooyada weight gain sameynaynin oo yani miisaankeeda uu kordhaynin. maadaama burkan waxaa rich ku ah ama ku badan fibriska waxay ka qayb qaadanayaan qofka calooshiisa inay socoto isla markaana caanaha naaska zaa'id u kordhaan. waxaa inta sii dheer protein yani protein uu leeyahay oo maadooyinka waxyaabaha uu ka samaysan yahay waa proteins u badan dadka murqahooda inuu dhiso oo kale weight loss qofka uu ku sameyn karo. intaas oo dhan qofka ka caawinaya. dadka sokorta iyo dhiigkarka iyo kolestaroolka qabaanna cuntooyinka caadiga ee qaadanayaan uu ka mid yahay. hadafka ugu muhiimsan oo aan ugu gol leeyahay soo saaritaanka borodhagtigaasna wuxuu yahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka warqabto ama ay ogaato in aynu haysano dal qani ah ama yani dalkeen inuu leeyahay waxyaabaha soo saarka dalaga dalka inuu aad muhiim u yihiin isla markaana ee dadka ay ka faa'iideystaan. dadka loo baahan yahay waa dhalinyarada Soomaaliyeed inay arintaas ku baraarugaan hal abuurkoodan ay diiradda ku saaraan wax soo saarka dalkana kor loogu qaado.
doctores idil aad u mahadsantahay waxaa rajeynayaa si fiican inay idinkugu sharaxday productiga soo saarto waxaan ku weydiinayaa fikradan inaad samaysid goormee kugu dhalatay goormee yani productiga ugu horeeyay goormee soo saartay fikradan horta waxay igu dhalatay jaamacadda marka aan dhameeyay dadka badanaa waxay yani xooga saaraan in ay isbitaal ka shaqeeyaan isbitaaladana waxaa ka warqabtaa wadankeena in shaqooyinka marka la apply gareyn ay ahayn oday gareyn ay tahay oo qofka awowgiis ama adeerkiis ama aabihiis uu geysto shaqo la-aanta jirtay kadib waxaa ku fikiray muhiim ma ahan qofka dhakhtarka ah in uu isbitaal tago oo cudurka uu sameeyo ama cudurkii uu daaweeyo laakiin waxaa muhiim ah waxyaabaha badanaa cudurada keenayaan in wax laga qabto ama sidii looga hortagi lahaa ama sidii lagu daaweyn lahaaba ay iska kaashadaan qof walba faculty-gu kasoo baxo soo marka ani waxaa isdhahay adiga oonan isbitaal tagin bulshada Soomaaliyeed waxaad ka warqabtaa qaladaad badan inay jiraan qaladaadkaas jiro aqoontaada adiga oo u kaashanaysid maxaa ka sixi kartaa waxa ugu fudud oo sixi karana waxay noqotay hab nololeedka ee bulshada Soomaaliyeed u nool yihiin ee cuntooyinka ay cunayaan waxaan rajeynayaa waxyaabo badan oo qaladaad inaan ka sixi doono ilaahay hadduu awood siiyo insha Allah aad u mahadsantahay doctores waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma jirtaa yani cid kaa caawisay haddii ahaan dhaqaalihi aad ku bilaabi lahayd oo kale qof gacan ka geystay productigaaga inaad soo saartid wallaahi caawinaadda labaa loo kala qaadaa caawinaad mid dhaqaale ah iyo mid dhiirigelin oo hadal ah midda dhaqaalahan mar walba waxaa kasii muhiimsan midda dadka ku riixaayo oo hadalka kugu taageerayo dhaqaale ahaan marka laga dhaho cid garab iga siisa haba yaraatee ma jirto waxaana ku bilaabay inta yareedoo markaas ani aan helaayay $100 aan haystay markaas $100 aan ku bilaabay waxa laakiin iiga muhiimsanaa waxay ahayd fikradda in aan dhiso in aan ku dhiirado inaan wixii sameeyo isla markaana dadka iigu dhow aan siiyo ilaa 2 bilood aan sii baaraayo feedback ee dadka iiga soo celinayaan 2 bilood kadib na ay noqotay wax naajix ah oo dadkii aad ay uga faa'iideen maasha Allah tijaabo kadib waxaa geysay suuqii oo yani productiga suuqa kale falcelinta bulshada ka soo laabatay maxay ahayd sidee yani ay u arkeen productigaaga falcelinta ugu muhiimsaneed oo bulshada iiga soo laabatay waxay ahayd mid positive ah ilaa iyo haddana wallaahi ma arkin qof oo yani feedback negative ama dhibaato ka arkay sababta waxyaabaha isticmaalayna oo dhan waxay ahaayeen waxyaabo dalkeena laga helaayo taasina waxaa sii dheereed inaa baaritaan dibadda ah usii dirnay si waxyaabaha uu ka kooban yahay oo kale faa'iidooyinkiisana loo soo saaro waana ku guuleysanay kalsooni badanna waa ku qabay oo marka hore intaan suuqa geenin oo waxaa soo marsiyay tijaabooyin kale oo dad kale ah soo marsiyay qaraabada asxaabta kadibna asxaabta marka ay soo dhaafto customer ay yeeshtay customerkeygana feedback ay igu soo celiyeen aad oo 100% u fiicnaa maasha Allah si wanaagsan waaye doctoresa aad u mahadsan tahay shaqadan inta ku dhex jirtay ama productigaaga soo saarkiisa wax caqabad ay la kulantay jiraan caqabad waa la kulmay howl walbana caqabad way leedahay waxa ugu muhiimsan caqabadaha waa laba mid koowaad oo dadku waxay barteen burka cad oo banaanka laga keenayo ina dadka yani waxa aad soo saaraysid aad bartidna waxay kugu qaadanaysaa waqti qodobka labaad waxay tahay caalamka waxaa jiro qalabyo badan oo aad u fududeynayo wax soo saarka laakiin anaga hadda wadanka markaa joogno waxaa laga yaabaa mashiino yaryar inaan isticmaaleyno taasina ee waqti badan ee qofka ku qaadanayso daal badan ee gelinayso wax badanna uu sameyn karin labadaas caqabadooda jirto mid ka mid ah horta way soo xalismatay oo dadka inay fahmaan maasha Allah laakiin mid kale waxaan rajeynayaa aydan in ay xalismi doonto waqtigeeda insha Allah wadankeena meel badan ay u baahan yahay in laga hormariyo waxaan rajeynayaa inaan adduunka gaarno oo waxyaabo badan aan qabsano haddii Ilaahay raaxo insha Allah doctoresa idil su'aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay mustaqbalka yani maxaa hiigsanaysaa maxaa rajeynaysaa ama intee rabtaa inay gaarsiisid ganacsigaaga insha Allah mustaqbalka waxaa hiigsanayaa in uu noqdo cajab company-ga ugu horeeya ee wax soo saarka dalka qayb weyn ka qaato insha Allah shaqo abuur badanna uu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed
aan horumarino dalageena dalka Soomaaliya ilaa iyo wadamada caalamkana aan la tartanno productyadeena aan u dhoofino insha Allah baarkeynaya company ajab in alaabta uu soo saaray in dibadda la geeyo alaabo kale oo farbadan dhalinyaro Soomaaliyeed ay sameeyeen in dibadda la geeyo hadii la yiraahdo su'aasha ugu dambaysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij aan ku dhiirigelinayno dumarka ganacsatada ah ama gabar kasta oo rabta inay wax soo saar sameyso horumar sameyso nafteedana ay ku filnaato maxaa kale oo siin lahayd guud gaar ahaan gabdhaha guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed waxaan gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa in aysan yareysan fikirkooda iyo hal abuurka ay leeyihiin intaba la fadhiisan guryahooda ugu yaraan ay dhaqdhaqaaq sameeyaan wax walbana wuxuu u baahan oo kaliya in uu qofka bilaabo hawl walba oo la bilaabo loo dhabar adeegana result ama natiijo wanaagsan ay soo bixi doontaa waxa aaminsanahay gabdho badan oo hal abuur leh inay ugu jiraan oo karti leh laakiin ay ku jirto cabsidana waxay qayb ka tahay qofka in aysan u ogolaan inuu qofka horumariyo nafsadiisa iyo tan dhaqaale intaba guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed waxa u dirayaa in ay xooga saaraan in number 1 ka dhigaan wax soo saarka dalka sidii kor loogu qaadi lahaa waxyaabaha dalkeena aan ka helin in number 1 laga dhigo isla markaana lagu dhiirigeliyo dadka wax soo saarka dalka qayb ka qaadanaya in lagu saacido insha Allah sidoo kale gabdhaha ganacsatada Soomaaliyeed laftirkood in ay isku noqdaan garab is dhiirigeliyaan is taageeraan gabadha business ku cusub ee business ku soo biirto la siiyo talooyin iyo wadooyinka ay qaadi lahayd iyo waxyaabaha caawin lahaa intaba intaas ayaa dhihi lahaa asxaabteena qaaliga ah barnaamijkeena intaas ayuu ku egyahay waa mahadsantihiin sida quruxda badan aad ugu xirantihiin janaalkayga Doctor Idil adigana waa mahadsantahay sida quruxda badan ay ka aqbashay inay aad mahadsantahay marti igu noqotid barnaamijkeena